kulanti wacan daawadayaal ku soo dhawaada janalka wararka Soomaalida qodobada ugu waaweyn ee warkayaga aad ku maqli doontaan waxa kamid ah ku dhawaad 30 oday dhaqameed oo maanta Muqdisho u soo gaaraya si ay madaxweyne Farmaajo ugala hadlaan xaaladda caafimaad ee Muqtaar Roobo oo aan wanaagsaneyn Farmaajo agaasimo cusub u magacaabay maamuuska madaxtooyada dowladda federaalka Soomaaliya oo ka carootay maamuuskii madaxweynaha Soomaaliland loogu soo dhaweeyay dalka Guinea iyo Villa Soomaaliya oo tallaabo degdeg ah qaadaysa beesha caalamka oo war xasaasi ah ka soo saartay xaaladda Galmudug iyo hanaanka ay dowladda federaalka u wajahayso Soomaaliland oo ka hortimid heshiis muhiim ah oo dowladda federaalka Soomaaliya ay saxiixday iyo qabuuro wadareed lagu aasay boqolaal qof oo laga helay dalka Syria intaasi daawadayaal waxay ahaayeen qodobadii warka ugu waaweynaa markana waxaad ku soo dhawaataan iyagii oo fidsan ku dhawaad 30 oday dhaqameed ayaa maanta Muqdisho u soo gaaraya si ay madaxweyne Farmaajo ugala hadlaan xaaladda caafimaad ee Muqtaar Roobo Cali Abu Mansuur oo aan wanaagsaneyn warar aan helayna ayaa sheegaya in ku dhawaad 30 oday dhaqameed oo ka socda deegaanada Koonfur Galbeed ay maanta magaalada Muqdisho ay u imaanayaan si ay madaxweyne Farmaajo ay ugala hadlaan xaaladda caafimaad ee Muqtaar Roobo Cali Abu Mansuur warbaahinta ayaa maalmihii u dambeysay si aad u hadalhaysay inuu xabsiga ku xanuunsanayo Muqtaar Roobo isla markaana dhowr jeer la dhigay cisbitaalka Digfeer ee magaalada Muqdisho ila xogogaal ayaa inoo sheegay shacabka iyo waxgaradka Koonfur Galbeed inay si aad uga careysan yihiin sida dowladda federaalka ay ula dhaqmayso wadaadkan oo mar hore shaaciyay inuu ka baxay kooxda Al-Shabaab oo saraakiishooda ugu sareyso uu kamid ahaa odayaasha reer Koonfur Galbeed ayaa sheegaya in xaaladda caafimaad ee Muqtaar Roobo marba marka ka sii dambaysa ay sii darnaanayso mana hayso daryeel caafimaad oo ku habboon sida ay sheegayaan qaar kamid ah dadka ku dhow dowladda federaalka Soomaaliya ayaa Muqtaar Roobo ka soo xirtay Baydhabo oo na xiran yahay muddo ku dhow 6 bilood waxaana marar badan waxgaradka Koonfur Galbeed ay kala xaajoodeen dowladda federaalka Soomaaliya sidii wadaadkaasi loo soo dayn lahaa gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan oo deegaan ahaan ka soo jeeda Koonfur Galbeed iyo madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Mudane Lafta Gareen ayaa waxa ay ku guuldareyseen in dowladda federaalka ay kala hadlaan Muqtaar Roobo si loo sii daayo balse taasi ma aysan dhicin waxgaradka iyo shacabka Koonfur Galbeed ayaa sheegay in dowladda federaalka ay xiriirka u jari doonaan haddii aysan sii dayn Muqtaar Roobo oo hadda ku xanuunsanaya xabsiga Habarqadiija ee magaalada Muqdisho dhinaca kalena madaxweyne Farmaajo ayaa agaasimo cusub u magacaabay maamuuskii madaxtooyada madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa u magacaabay Cabdi Xaaji Cumar Sandhool inuu noqdo agaasimaha maamuuska madaxtooyada sida ay ogaatay warbaahinta Cabdi Xaaji ayaa bedeli doona madaxii hore ee agaasimaha maamuuska madaxtooyada Saciid Kambaalo oo bishii tagtay ka baxsaday Muqdisho kadib markii uu lugaha la galay arrimo la xiriira muran dhuleed si qaladna u adeegsaday ciidamada dowladda Cabdi Xaaji Cumar Sandhool waxa uu kamid ahaa dadka taageersan madaxweyne Farmaajo ee ku nool dalka Ingiriiska hase ahaatee markii uu Farmaajo guuleystay waxa uu rajeynayay xil wasiir taasi oo aan dhicin mas'uulkan ayaa la sheegay inuu abti ugu aadan yahay xaaska madaxweynaha oo hooyada ay xigta yihiin marwada madaxweynaha ayaa muddooyinkii dambe waxaa la arkaa inay dad badan oo xigtadeeda ay ku soo biirinayso dowladda Cabdi Xaaji Cumar Sandhool ayaa waxaa la magacaabay shalay isagoo jooga London waxaana uu dhawaan iman doona xamar si shaqada loo magacaabay uu qabsado geesta kalena dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ka carootay maamuuskii madaxweynaha Soomaaliland loogu soo dhaweeyay dalka Guinea iyo Villa Soomaaliya oo tallaabo cad qaadaysa warar dheeraad ah waxay ka soo baxayaan sababta shirkii jiraayid ee shalay uu qaban lahaa wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya u baaqday xafiiska wasiirka ayaa waxaa looga wacay wariyaasha gudaha iyo dibadda iyadoo loo sheegin inay ka soo qayb galaan shir jiraayid uu qabanayo wasiirka saacad ka hor waqtigii loo ballansanaa shirka jiraayid ayaa la sheegay inuu baaqday kulankii uu saxaafadda isugu yeeray wasiirka iyadoo aan si rasmi ah loo ogeyn sababaha keenay balse loo badinayo inuu wasiirka soo saari doono war saxaafadeed qoraal ah ilo wareedyo lagu kalsoonaan kara ayaa sheegaya in wasiirku ka hadli rabay booqashada madaxweynaha Soomaaliland oo ku tagay dalka Guinea iyo maqaamka soo dhaweynta ee loo sameeyay taasi oo ka careysiisay dowladda federaalka ee Soomaaliya dowladda Soomaaliya ayaa ila wareedyo xaqiijiyeen inay dacwad ka dhan ah dalka Guinea u gudbinayso Midowga Afrika maadaama ficilkaas ay u aragtay inuu yahay mid ay dowladda Guinea ku aqoonsanayso Soomaaliland madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa
maalin ka hor gaaray caasimada dalka Jamhuuriyadda Guinea ee galbeedka qaaradda Afrika oo ay martiqaad rasmi ah ka heleen madaxweynaha iyo wafdiga uu hogaaminayo waxaa garoonka caalamiga ee dalka Guinea ku qaabilay wasiirka arrimaha dibadda dalka Guinea mudane Mamadi Toure intaa kadib madaxweyne Biixi iyo wafdiga uu hogaaminayo waxaa garoonka Conakry International Airport lagaga qaaday diyaarad qaas ah oo nooca qumaatiga u kacda ah helicopterka loo yaqaano taas oo si toos ah madaxweynaha iyo xubnaha wafdiga u geysay qasriga madaxtooyada wadanka Jamhuuriyadda Guinea sidoo ku soo waramaya afayeenka madaxweynaha Maxamuud Warsame beesha caalamka ayaa war ka soo saartay xaaladda Galmudug iyo hanaanka ay dowladda federaalka ay u wajahayso dowladaha France, Finland, Denmark, Germany, Italy, Poland, Netherlands, Norway, Sweden, Switzerland, Turkiga, Ingiriiska, Mareykanka, howlgalka Amisom iyo midowga Yurub iyo urur goboleedka IGAD qaramada midoobay iyo saaxiibada Soomaaliya ayaa waxay si wada jira u soo dhaweeyeen wadahadalada Galmudug ka socda iyo isu dumida garabyada siyaasadda ay hormuudka ka tahay dowladda federaalka Soomaaliya war qoraal oo ka soo baxay xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya UNSOM ayaa lagu sheegay inay daneeyayaasha iyo saaxiibada Soomaaliya amaanayaan wadahadalada ka socda Galmudug si ay u midoobaan garabyada korna loogu qaado xasiloonida deegaanadaasi taas oo waxtar u leh dadka halka ku dhaqan iyo guud ahaan Soomaaliya qoraalkan ayaa sidoo kale lagu faray in dhammaan daneeyayaasha Soomaaliya ay sii wadaan dadaalkooda iyo inay Galmudug ku soo dabaalaan dib u heshiisiin ballaaran oo loo dhan yahay taas oo horseedi karta doorasho hufan oo cadaalad kana soo baxaan hoggaan cusub si aan dhibaato lahayn dhinaca kalena Somaliland ayaa ka hortimid heshiis muhiim ah oo dowladda federaalka ay saxiixday xukuumadda Somaliland ayaa ka hadashay heshiis ay dhawaan kala saxiixdeen dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo hay'adda ACOW kaas oo ahaa heshiiskii ugu dambeeyay ee dowladda Soomaaliya kula wareegaysa maamulka hawada Soomaaliya Somaliland ayaa heshiiskaasi ku sheegtay inay ka dambeeyeen wadahadalo qarsoodi ay wada yeesheen dowladda Soomaaliya iyo waliba hay'adda ACOW wasiirka arrimaha dibadda Somaliland Yaasiin Faradoon oo ka hadlay heshiiskaasi ayaa sheegay inay adag tahay in la hirgeliyo heshiiskaasi ay kala saxiixdeen dowladda federaalka iyo ACOW isagoona xusay inay jiraan cabashooyin kale oo laga qabo heshiiskaasi arintaasi waxaan u aragnaa mid qalad ah oo si qaldan u dhacday caalamkana aan ogoleen anaguna aanan ogoleen iminkana aanan filayn inay sidaasi ku sii socoto ayuu yiri wasiir Faradoon waxa uu intaasi ku daray si ay ku dhacdaba hay'adda ACOW iyo dowladda Soomaaliya wadahadal qarsoodi oo aan la ogeyn ciidana kula socon ayaa dhexmaray hawadiina ay kula wareejeen meelo badanna waa laga qaylinaya una maleyn maayo inuu hirgalayo ugu dambeyntiina qabuur wadareed lagu aasay 100 qof ayaa laga helay dalka Syria meydadka ilaa 200 qof ay ku jiraan kuwa ay kooxda Daesh dishay ayaa laga helay meel ku dhow magaalada Raqqa ee bartamaha dalkaasi Yaasir Al-Khamiis oo ka tirsan kooxda la socodka xuquuqda aadanaha ee Syria ayaa sheegay in meydadkaasi ay ku jiraan rag dhexdhexaad oo madaxa laga toogtay iyo 3 haween oo la rumaysan yahay inay kooxda Daesh ku dileen dhagax waxa uu tilmaamay inay rumaysan yihiin in meydadka la helay la dilay muddo haatan laga joogo wax ka badan 2 sano waxaana intaasi ku daray inaysan kooxdiisa awoodin inay aqoonsadaan meydadkaasi qabri qodayaasha dib u soo faagay meedadkaasi waxay sheegeen inay qubur wadareedkii ugu horeeyay bilowgii bishii hore ay ka heleen cirifka koonfureed ee magaalada Raqqa oo horey caasimad u ahayd kooxda Daesh isla markaana laga yaabo in lagu aasay in ka badan 800 oo qof bishii February ee sanadkan waxa qubur wadareed lagu aasay qiyaastii 3500 oo qof laga helay dhul beereedka Al-Fuqayqa ee magaalada Raqqa oo ay Maleeshiyada kooxda Daesh si buuxda ay u maamuli jireen bilowgii sanadkii 2014 ilaa iyo Oktoobar ee sanadkii 2017 guud ahaan daawadayaal warkii aad kala socoteen channelka wararka Soomaalida waa naga inta fadlan hadii aad nagu cusubtahay nagu soo bir oo subscribe saar channelkan sidoo kalena qaybta hoose gambaleelka taabo si ay ku soo gaaraan wararkii ugu dambeeyeen halkan soo gelino waana mahadsantiin